maamulka kadib maanta waxaa farxadee inaan kasoo qayb galo xafladan xiritaanka dufcada ugu horeysa 200 ay yeeshaan maamulka Hirshabeelle tababarkaad soo qaadateen muddada 3 bilood in aad tihiin 800 kale oo shirka oo la yeelinayo furi doono tababarka 600 kale waxaa wajud ah idinka marka waxay dadku dhaqataan ayagana ku dhaqmi doonaan marka waxaan rajeynayaa inaad ku fiican noqotaan inaad tusaale fiican noqotaan aan halkaan rabaa inaan ugu mahadceliyo midowga Yurub dowladda Ingiriiska iyo dowladda Jarmalka oo dhaqaalaha iyo wixii ay naga saacideen ayagana waxaan celinaa sidoo kale amisom oo hore habeenna hartaagan oo amniga hadda meeshaan iyo maamulka goboleedyada waddanka dhinac naga suga amisom oo waxaan celinaa waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaad tihiin dufcada ugu horeysaa tihiin waxaa laydinka rabaa dadaal badan inaad amniga ka shaqaysiinaa laydinka rabaa inaad bulshada si degan ula macaamishiinaa laydinka rabaa sharciga inaad dhowrtiinaa laydinka rabaa dufcadaha dambe ee la tababaray haddii ilaahay raalli ka naqdana waxaa la rabaa inaad ku dayasho u naqatiin oo idinku daydaan waxaad tihiin curadkii ciidanka dowlad goboleedka Hirshabeelle curadkana waxaa la rabaa wanaag badan inuu qeybaha kuwa inta kale oo ka dambaysa uga daydaan waxaa laydinka rabaa dadaal badan iyo waxaa laydinka rabaa inaad bulshada si wanaagsan ula macaamishiin dufcadan waa dufcada ugu horeysay haddii ilaahay raalli ka naqdana waxaa ku xigaysa dufcad kale waxaa lagu tababari doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo magaalada Jowhar iyo magaalada Beledweyne labadaas qaybaa lagu kala tababari doonaa alxamdulilah ilaahay maantaas iskale waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle ciidan maaragtay sidaan u diyaarsan in loo soo xiro maanta tababarkii waa guul loo soo hoyatay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle cid kasta ee gacan ka geysatana waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo annaguna waa dadaalaynaa ciddi maaragtay talo iyo maaragtay waxqabad labadaba nagu soo kordhaysana waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin ciidanku wuxuu taagan yahay muddo dheer oo qorrax taagan yahay waxaan rabaa inaan idhaahdo dadaal badanaa laydinka rabaa cid kasta ee gacan ka geysatay tababarkaana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin Show you la shaqeeyo